الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا كل عاوة ورمضان aynu soo dhowdahay taariikhduna ay tahay 28 Shacbaan 1445 hijriga waxaynu galaynaa mawduuc unwaankiisu yahay ya baaghi alkhayr aqbil wuxuu ku saabsan yahay kollay sida la dareemayo mawduucu bisha ramadaan iyo fadligeeda iyo ka faa'iideysigeeda iyo waxyaalaha wanaagyada la inoogu sheegay wax ka mid ah inaynu tilmaanno waana mawduuc kollay ballaaran wakhtiga kollay maghrib iyo cisho u dhaxeeyaana waaba iska kooban yahay marka insha allahu tacaala bal qadarka aynu kari karno ayaynu ka tilmaami doonaa mawduuca wax ka sheegi doonaa insha allahu tacaala cunwaanka waxaynu ka qaadannay xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey culammadu ay quweeyeen oo sheegaya fadiilada markaa bishu ay leedahay iyo waxyaalo badan oo bisha ku sugan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay xadiidka naskiisa haddaynu akhrinno wuxuu sheegayaa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida kaana awalu laylatin min shahri ramadaana sufidat alshayaaiin wamaradat aljin wagulliqat abwaabu annaari falam yuftax minha baab wafutixat abwaabu aljannati falam yuglaq minha baab wayunaadi munaadin ya baagiya alkhayri aqbil waya baagiya alshari aqsir walilahi cutaqaa'u min annaar wadalika kula layla rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam marka habeenka ugu horreeya bisha ramadaan uu markaa la helo ama markaa uu yimaado waxa la xidhaa shayaadiinta la xidhaa shaytaamada ayaa la xidhaa jinka kuwooda madaxa adagna waa la xidhaa wa maradatul-jin waxa la xidhaa albaabada naarta oo albaabada naarta ka mida lama furo waxaa la furaa albaabada jannada oo albaabada jannada ka mida lama xidho wa yunaadi munaadin mid dhawaaqa oo amar ilaahay ku dhawaaqayaa loo jeeda ayaa dhawaaqa waa malak wuxuu yidhahdaa yaa baaqiya alkhayri aqbil ka khayrka doonayo soo qaabilo kaalay riwaayaadka qaarkood lafdiga ku yimi wuxuu yahay yaa baaqiya alkhayri halumma kaalay weeye wa yaa baaqiya ashari aqsir ka sharka doonayow sharka iska daa oo ka gaabso yacnii iska daayoo ka gacan hayso wax shara ha samaynina iska daa walilaahi cutaqaa'u min annaar allahna waxaa u sugnaaday dad naarta laga xoreeyo ayaa u sugnaaday oo bisha ramadaan gudaheeda laga xoraynaayo wadaalika kulla layla taasina waxay ahaataa xoraynta dad naarta laga xoraynayaa habeen kasta oo habeennada ramadaan ka mida mid dhacaya ayuu ahaadaa kulla waa mansuubo waa daraf weey xadiidkaasi waa xadiis qawi ah tirmidi iyo ibnu maajah iyo ibnu khusayme iyo ayaa soo wariyey iyo ibnu xibbaan ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo albani intuba waa saxiixiyeen xadiiskaasi wuxuu sheegayaa masaa'il badan buu sheegayaa oo in shayaadiintii la xidhaayo kuwooda madaxa adag la xidhaayo marka ramadaan soo gasho in albaabadii naarta la xidhayo sharki inuu yaranayaa la tilmaamayaa in albaabadii jannada la furaayo in waxaweeye loo baaqayo ciddii khayr doonaysaana khayrkii inay la timaado ku dadaasho ciddii shar doonaysaana sharka inay iska dayso yacni waa xilli fadli badan bishani waa mawsim khayr badan weeye dad fara badan nasiib uma hel inay soo gaadhaan waxa weeye dembi dhaaf baa jira naxariis ilaahay baa jirta waxaa jirta waxa weeye naarka xorayn baa jirta yacni fadaa'il badan baa ku sugan fadli fara badan ayaa ku jira saas aawadeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walilaahi cutaqaa'u min annaar yacni dad naarta laga xoreeyo ayaa bishan jiraysa oo ilaahay naarta ka xoraynaayo taasina habeen walba waa dhacdaa maaha habeenka laylatulqadriga keliya in laga xoraynayo naarta
ma aha tobanka ugu dambeeya ramadaan keligood inay yihiin kuwa naarta laga xoraynayo dadka qaarkood ee habeen kasta ama tobanka hore ha ka mid ahaado ama tobanka dhexe ha ka mid ahaado ama tobanka dambe ha ka mid ahaado habeen kastoo ramadaana dad aan hore naarta looga xorayn oo naarta laga xoreeyo ayaa jirta. ilaahay kuwa qaar ka mid ah inaga dhigo. ilaahay ramadaan hayna gaadhsiiyo. kuwa ka faa'iidaysta ilaahay haynaga yeelo. tawfiiqda ilaahay hayna siiyo, haynoo kordhiyo, haynoo ziyaadiyo. ilaahay khayrka hayna waafajiyo. kuwa ilaahay naarta ka xoraynaayo ilaahay haynagu daro. allahuma actiq riqaabana min annaar. allahuma actiq riqaabana min annaar. allahuma actiq riqaabana min annaar. allahuma actiq riqaabana wa riqaaba waalidiina min annaar. allahuma aamiin wa sala allahu calaa muxammadin wacala aali muxammed. dad fara badani nasiib uma helin inay ramadaan gaadhaan. iminkadan gudheeda waxbaa ka hadhay ramadaan, ma garan karro inaynu gaadhayno. waynaynu ilaahay ka barinaa inuu ilaahay ina gaadhsiiyo. mar labaadkana waynu ilaahay ka barinaa inuu ilaahay ina waafajiyo, ina solansiiyo sida wanaagsan ina solansiiyo, ina waafajiyo. waxaa soo arooray xadiis nebi calayhi salaatu wassalaam. xadiiskaasi wuxuu sheegayaa nin saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida riyooday. wuxuu ku riyooday laba nin oo isku reer ahaa oo islaamay oo isku wakhti islaamay, nebigana calayhi salaatu wasalaam la kulmoo saxaabadiisa ka mid ahaa. mid jihaadkii buu galay, waa ku shahiidnimo qaata. dagaalkii gaalada nebigu la jihaadayey ayuu markaa ka qayb galay, dabeedna waa ku shahiiday. weliba wuxuu ahaa labada nin ka cibaadada u dadaalka badan sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan. kii kale hal sanuu ka dambeeyey, waa sannad qura, maaha sanawaad badan. sannad buu sii noolaa oo nolosha kaga sii dambeeyey, kadibna firaashkiisu ku dhintay, isaguma shahiidnimo qaadan. saxaabi baa wuxuu ku riyooday labada kii shahiidka ahaa mooyaane kii kale oo jannada horraan galuu ku riyooday. markaasuu arrinkaa aad ula yaabay. markuu la yaabay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, alaysa saama bacdahu ramadaan wa sallaa bacdahu kada wa kada rakca salaata asana. bimacnaa macnuhu wuxuu u dhacayaa, maxaad ula yaabaysaa inuu jannada ka horraan galo ama ka korreeyo, miyaanu ninkaa dabadii miyaanu ramadaan soomin, oo intaa iyo intaasoo ragcadoodna miyaanu tukan. hadda waa salaaddii sannadda uu tukanaayo. xadiidka waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu maajah iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey. riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa wa sallaa 6000 rakca. miyaanu ramadaanna soomin dabadii 6000 oo ragcadoodna miyaanu tukan, iyo wa kada rakca, iyo weliba intaa iyo intaasoo ragcadood. salaadaha faralkaa keliya marka la eego habeenkiiyo maalintii 17 ragcadood baa faralku yahay, sunnayaal markaan lagu darin. sannaddii haddii lagu dhufto oo sannadda weliba aynu ka dhigno ta qamariga ee dayax aynu ka dhigno, waa 354 maalmood sannadda dayaxa laga tiriyaa. markaa 354 maalmood aad ku dhufato 17, cadadka soo baxaya waa badanaya. 6000 oo ragcadood buu ka badanaya. waa faralka keliya. bal sunnayaashii ka warran marka yacni cimriga dheeri ee qofku cibaadadii uu la yimaado, salaadihii iyo soonkii uu la yimaado, fadli weyn baa ku jira. waa sababta ay xadiiskii ugu soo aroortay, khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluh. waxaa idinku khayr badan kii cimrigiisuna dheeraado, camalkiisuna samaado. labadaa arrinkii isku darsada baa idinku khayr badan. xadiiska hore aynu sheegnay culamo badan baa quweeyey. buusiiri iyo haythami iyo mundiri intuba waxay yidhaahdeen sanadkiisu waa xasan. ibnu xibbaan waa saxiixiyey, albaanina waa saxiixiyey. waxaad halkaa ka qaadanaysaa soonka bisha ramadaan la soomaa fadli buu leeyahay. marka fadli weyn baa ku sugan. cibaadada in laga faa'iidaysto oo wakhtiga markaa laga faa'iidaysto aad iyo aad bay muhim u tahay. xadiis kale waxaa ku soo aroortay baabulfadaa'ilkaynu tilmaamaynaaye, nin markaa waxa weeye dhintay oo la xabaalay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, halkan yaa markaa lagu aasay? waxay yidhahen hebel baa lagu aasay.
markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rakcataani khafiifataani mima taxqiruuna wa tanfiluuna yaziiduhumaa hada fii camalih axabu ilayhi min baqiyati dunyaakum laba ragcadood oo khafiifa oo ay yaraysanaysaan oo sunnanimo ula timaadaan oo kani uu camalkiisa ku kordhin lahaa hadda waa laba ragcadood oo weliba aan la dheerayn ee la gaabiyo oo sunno ah axabu ilayhi min baqiyati dunyaakum wuxuu ka jecel yahay ninkaa la xabaalay adduunyadiinna inta hadhay oo dhan wuxuu ka jecel yahay labada ragcadood inuu heli lahaa qadarka labada ragcadood lagu tukanayaa waa intee waa qadar aad iyo aad u kooban xadiiska ahlucilmiga qaarkood markaa waa quweeyeen mundiri waxa uu yidhi sanadkiisu waa xasan ayuu markaa uu yidhi mundiri oo waa taxsiiniyey wakadalika albani isaguna wuxuu odhanayaa sanadadiisa qaarkood xadiiskaa waa saxiix calaa sharti muslim siduu saxiixada ku caddaynaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa ragcataani axabu ilaa hada min baqiyati dunyaakum dabaraani baa awsadka ku soo wariyey hayrkiina waa soo wariyeen laba ragcadood baa ninkani ka jecel yahay la xabaalay adduunyadiinna inta idinka hadho oo dhan wuxuu ka jecel yahay labada ragcadood inuu heli lahaa hadda ma aragtaa marka waxa weeye fursadda in laga faa'iidaysto aad iyo aad bay u habboon tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni bishan ramadaan waa ku bushaarayn jiray wuxuu odhan jiray waxaa idiin timi jaa'akum shahru ramadaan shahrun mubaarak yacni markaa bishii ramadaan baa idiin timi bil barakaysan baa idiin timi oo la barakeeyey ilaahay wuxuu idinku faral yeelay soonkiisa ayuu idinku faral yeelay fadaa'isha kale ku sugan wax ka midana nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam hadday tahay albaabada jannada la furaa hadday tahay albaabada jaxiimka ama albaabada naarta ayaa la xidhaa iyo waxyaalaha la midka ah xadiiskaasina qawi weeye culamada qaarkoodna waa quweeyeen marka ruuxii ramadaan gaadhaa ilaahay ha ugu shukriyo nicmo hadduu ruuxu helo nicmada waa inuu ku shukri naqaa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa baa allah yidhi haddaa markaa shukri naqayga ka abaalka dartaanna cadaabkaygu waa daran yahay allah baa sidaas yadaa yidhi marka ramadaan waa lagu ducaysan jiray culammadii salafka waxaa laga soo wariyaa inay odhan jireen ilaahu ramadaanna gaadhsii oo camalka markaa waxa weeye wanaagsanna waafaji waxay marka dambe ku ducaysan jireen in waxa weeye laga aqbalo camalka wanaagsan xadiis qudhisa waa lagu soo wariyey marka bisha rajab soo gasho inuu nebigu odhan jiray allaahuma baarik lana fii rajabin wa shacbaan wa ballignaa ramadaan laakiin sanadkiisa waa daciif sheekh albaanina sanadkiisa waa daciifinaya inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxa weeye fadaa'ilu acmaalka yacni daciifka waa loo soo qaadaa haddaan dacfigiisu darnayn aysaa yidhaahdeen calaa kulli xaal fi saxiixi qunya yacni markaa saxiixa ayaa inagaga filan ramadaan fadliga ku soo arooray aad iyo aad buu u badan yahay fadaa'il badan baa ku timi oo laynoogu sheegay hadday tahay marka waxa weeye xagga soonka iyo fadligiisa hadday tahay xagga markaa qiyaamka iyo fadligiisa hadday tahay yacni bishan fadaa'isha ku sugan naarka xoraynta iyo dembidhaafyada iyo ashyaada noocaas oo dhan fadliyo fara badan baa ku jira waxaa ku sugan habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo ayaa ku jira laylatulqadri khayrun min alfi shahr waxay ka khayr badan tahay 1,000 bilood oo aan ramadaan ku jirin 1,000 bilood waxa weeye waa dhowr iyo 80 sano 380 sano iyo 4 bilood bay 1,000 bilood noqonayaan markaad 12 u qaybiso 1,000 waxay noqonayaan 12kii bilood markaad u qaybiso 380 sano iyo 4 bilood bay noqonayaan cumrul ghaalibkii ummadaba waa ka badan tahay acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuusu dalik waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cimriyada ummadaydu waa inta 60 iyo 70 u dhaxaysa inta ka tallowda oo 70 ka dhaafta ayaa yar ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka bishan fadli badan baa ku jira waa bishii qur'aanka la soo rogay shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda waalfurqaan yacni bisha fadaa'isheeda waxaa ka mida waa bishuu ilaahay u dooray qur'aanka inuu soo dejiyo oo soo dejintiisa yacni markaa waxay dhacday ramadaan bay dhacday oo habeen ramadaan ka mid ah oo laylatulqadri ah ayaa qur'aanka la soo dejiyey
jumhuurka culammadu waxay yidhahdeen qur'aanku isagoo jumlo ah ayaa la soo dejiyey ila samaa'i dunya loo soo rogay waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey bisanad saxiix kana asaxday cid saxaabada ka mida ku khilaaftayna aan la ogeyn xukmu rafcina munaasib buu yahay markaa inuu yeesho markaa jamaahiiru ahlicilmina ra'yiga noocaasay raaceen bacdi culammada ka midoo yidhi soo dejintiisaa la bilaabay habeenka laylatulqadriga sidaa u fasirayna waa jiraan laakiin sida hore aqwa ah oo xoog badan marka maadaama qur'aanka la soo dejiyey in qur'aanka la akhriyo oo wakhtiga looga faa'iidaysto oo goorta la soo dejiyey qiraa'adiisa la badiyo yacni waa laga qaadanayaa ahlucilmiguna waa ka daliishadeen waa la soo naqliyaa culammadii hore inay aad iyo aad u akhrin jireen markaysaga bisha ramadaan qur'aanka inay aad u akhrin jireen nebigana calayhi salaatu wasalaam jibriil qur'aanka wuxuu la diraasayn jiray oo yacni markaa qur'aanka yacni uu ka dhagaysan jiray una bandhigi jiray bisha ramadaan gudaheeda marka in looga faa'iidaysto akhrinta qur'aanka la akhrinayo habeenkeeda iyo maalinteedaba waa arrin aad iyo aad marka u muhima fadaa'isha bisha ayaynay markaa waxaa gelaysaa fadaa'isha bisha ayay markaa soo gelaysaa fadaa'il badan oo kale waa jiraan waxna zamanka fadligiisa weeye waxna waa soonka fadligiisa soonkana fadaa'il fara badan baa laynoogu sheegay hadday tahay markaa naarta inuu markaa yacni uu yahay gaashaan ka yahay alsiyaamu junnatu yastajinnu biha alcabdu min annaar sida xadiis nebiga laga soo wariyey imaam axmed wakhayruhu soo wariyeen oo saxiixa yacni soonku waa gaashaan qofku uu kaga gaashaamanayo addoonku naarta kaga gaashaamanayo waxaa kaloo laynoo sheegay yacni waxa weeye sababta soonka ilaahay dartii qofku hadduu u soomo oo uu markaa waxa weye fii sabiili illahi weliba ku soomo yacni inuu markaa wejigiisa naarta laga fogaynaayo 70 markaa dayrood masaafo loo socdo in laga fogaynaayo yacni saasna waa soo aroortay soonku inaanu wax u dhigmaa jirin xadiis baa markaa sheegaya in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka bisawmi laa misla lah soonka laazim soonka wax la midi ma jiro soonka wax la midi ma jiro nasaa'i ibnu xibbaan iyo kayrkii baa soo wariyey waana saxiixo culamo badan baa markaa saxiixiyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey qaala allahu tacaala kullu camali bni aadama lahu ila asiyaama fainahu lii wa ana ajzii bih camalka bini aadamkao dhan isaguu u sugnaaday soonka maahe soonka mooyaane inta kaleo dhan camalku isaguu u sugnaaday fainahu lii wa ana ajzii bih soonku anigu ii sugnaaduu allah yidhi anaana ka abaalmarinaya wasiyaamu junna soonku waa gaashaan faida kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfus walaa yaskhab fain saabahu axadu aw qaatalahu falyaqul ini imru'un saa'im waladii nafsu muxammadin biyadihi lakhulufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk lisaa'imi farxatan yafraxuhuma ida aftara farixa waida laqiya rabbahu farixa bisawmih riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan ida aftara farixa bifitrih waida laqiya rabbahu farixa bisawmih xadiidka saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi camalka bini aadamkao dhan isaguu u sugnaaday soonka mooyaane soonku aniguu ii sugnaaday anaana ka abaalmarinaya culammadu waxay isweydiiyaan macnaha looga jeedaa maxay tahay ila asiyaama fainahu lii wa ana ajzii bih ilaa acmaasha wanaagsan oo dhan waxaa loola imanaya ilaahay dartii ilaahay baa loo samaynayaayoo cidda ahluliimaan waalikhlaas ahi allah dartii bay ula imanayaane maxaa soonka loo gaar yeelay oo uu ilaahay isugu nisbeeyey culammadu aqwaal badan bay ka yidhaahdeen ilaa ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen 40 weji oo kala duwan inay culammada qaarkood ay tilmaameen ha yeeshee wejiga ugu xoogga badan inshaa allah waa wejiga odhanaya inta loo labalaabayo mudaacafadiisu noqonayso allaahunbaa og waxaana taa caddaynaya xadiiska markaa waxaa sheegaya riwaayada sheegaysa ee saxiixa ku soo aroortay yatruku طacaamahu wa sharaabahu min ajli alsiyaamu lii wa ana ajzii bih waalxasanatu bicashri amhaaliha soonku anigu ii sugnaaday anaana ka abaalmarinaya ilaahay baa odhanaya xasanaduna 10 la mida lagu abaalmarinayaa 10 goor baa loo lamalaabaya riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo saxiixa ku soo aroortay
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي مسلم baa صaxiixa ku soo wariyey riwaayadaasi waxay ku caddahay xagga mudaacafadii in laga reebay oo maadaama markaa xadiisku sheegaayo bini aadamku camalku u sameeyo waa la labanlaabaya xasanadii 10 la mida lagu abaalmarinaya lagu labanlaabaya ilaa 700 oo labanlaab la gaarsiiyo qaala allahu tacaala ila asawma fainahu lii allah baa dabeed wuxuu yidhi soonka mooyaane soonku anugu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaayo oo kuwa kaleba ilaahay baa abaalmarinayee maxaa la soo reebay waxaa la soo reebay mudaacafadii 10 laabka ahayd ama 700 goor la labanlaabaya laga reebo qadarka la labanlaabayo soomka allah oo keliya garanayo waayo baabu sabri soomku baabkii sabirkay ka mid tahay innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri xisaab waxaa loo wafeeyaa loo dhammaystiraa kuwa sabraya ajarkooda xisaab la'aan ilaahay waxaan u tirsanayni ma jiro wax waliba ilaahay waa u tirsan yihiin laakiin qur'aanka iyo xadiiska markaa mas'alo laynoogu sheegayo usluubkii lugatul carab lagu yaqaanay baa dadka lagula khitaabaya lagula hadlaya carabtuna waxay u yaqaaneen hadday yidhahaan shaygaasi waa bilaa xisaab inuu aad u fara badan yahay laakiin ilaahay wax waliba waa u tirsan yihiin shay walba ilaahay waa koobay waxaan ilaahay u tirsanayni ma jiro ya laakiin usluubkay dadku garanayeen baa lagula hadlay oo dadku waxay yidhaahdaan wixii aad u fara badan yahay waxaasi cadad ma leh xisaab ma leh oo iyagu waxay tirin karaan baa dee iska kooban haddii imka dadka lagu odhan lahaa ciidda tiriya inta xabbe ay tahay ma tirin karaan waxay odhanayaan tiro ma leh tiro way leedahay iyagaan garanayn marka waxaa laga tilmaamayaa soonka inta la labanlaabayo ee sawaabkeeda iyo ajarkeeda allah oo keliya garanayo allah baa la gaara cadad mucayana oo dadka loo sheegay intaa in loo labanlaabaya ma jiro fadaa'isha soomkay ka mid tahay fadaa'isha waxaa ka mid a soonka in waxa weeye laynoo sheegay in soonku shafeeco qaadayo siduu qur-aanku u shafeeco qaadayo soonku inuu kafaaro yaho dembiyada daadinaayo yacni markaa dadka soomani albaab gaara jannada inay ka gelayaan baaburayaan leeyihiin fadaa'il fara badan baa u soo arooray oo laynoo sheegay inuu markaa soonku leeyahay haddaba waxyaal looga faa'iidaysan karo oo soonka markaa waxa lagula iman karo ama loogu diyaargaroobi karo bisha ramadaan waxa ugu horraysa towbadii istikfaarka in dunuubtii laga toobad keeno allah la dembi dhaaf weydiisto xagga allah loo noqdo yacni taas yadaa waa waxa ugu horreeya looga faa'iidaysanayo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun xagga allah u toobad keena mu'miniinay istikfaarkiiyo toobada waa in la badiyaa mar labaadka waa in lagu farxaa lagu bushaaraystaa bisha mar saddexaadka waa in ilaahay loogu shukrina qaaciddii gaadha intaan la gaadhina waa in lagu ducaystaa in ilaahay ina gaadhsiiyo camalkeedana ina waafajiyo camal wanaagsan inu kula nimaadno aynu ka faa'iidaysanno mar afraadka waa in niyo wanaagsan lala yimaadaa oo casmi iyo niyo go'aan ah inuu qofku ka faa'iidaysto awqaaddiisana acmaal wanaagsan ku camiro waa inuu markaysagaa taasna la yimaadaa inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa niyadu waa shay aad iyo aad u muhim ah waa xikamka waxaa ka mid a xadiisnimo uma asixine niyatu lmu'mini khayru min camalih qofka muuminkaa niyadiisu waa ka wanaagsantahay camalkiisa oo waxa uu wanaagsane u niyoodo niyo go'aan oo casmi ah waxaa lagu abaalmariyaa bixasabi niyatih waxaa laga qaadanayaa wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaaday haddiiba marka aanu gaadhin oo aynay u suuro gelin oo niyada go'aanka ee wanaagsan uu la yimaado marka hore oo dabeed marka aanu gaadhinba ama cudurdaar ka mancinaya uu ku soo darriyo ama xanuun ha noqdo ama wax kale ha noqdee waxaa lagu abaalmarinayaa bixasabi niyatihi alsaalixa niyadiisii wanaagsanee casmiga ahayd ee dhabta ahayd yacni marka ayaa lagu abaalmarinaya wa inama likulli imri'in maa nawaa waxaa ka mid a waxyaalaha lagaga faa'iidaysanaayo in la niyoodo oo la go'aansado marka la toobad keeno dabadeed in markaa dembiyada iyo xumaanaha laga tago
oo yacni markaa wanaagga uun markaa aad looga faa'iidaysto yacni sayi'aadka iyo xumaanaha iyo waxyaalaha noocaas oo dhanna marka la yska ilaaliyo taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha lagaga faa'iidaysanayo waxyaalaha markaa lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid a furaska la jooga ee markaa ramadaan inuu qofku marka waxa qorsho wanaagsan uu yeesho daacada uu la imanayo hadday wardi tahay tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir yacni adkaartaas inuu marka waxa akhriyo waa albaaqiyaat asaalixaat inuu marka waxa adkaarta akhriyo qur'aanka wuxuu ka garanayo akhriyo yacni qur'aankii aad u akhriyo yacni wuxuu awoodi karo akhriyo inuu marka waxa weeye taacaadka kale ka faa'iidaysto hadday sadaqada tahay hadday marka waxa weeye yacni qurubaadka kale iyo wanaagyada hadday tahay aad iyo aad inuu uga faa'iidaysto ixsaanka badiyo ya hal jazaa'u lixsaani ila alixsaan abaalmarin wanaaggeed abaalmarinu weeyi ruuxii wanaag sameeya ilaahay wanaag buu ku abaalmariya waxaa ka mida masaakiinta in loo naxariisto irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa u naxariista cidda arlada ku sugan waxaa idiin naxariisan doonaa ilaaha korreeyaa idiin naxariisan doonaa alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan yacni cidda naxariisata ilaaha raxmaankaa u naxariisanaya ilaaha raxmaanka ah ayaa u naxariisanaya marka waxa weeye yacni si uu ilaahay inoogu naxariisto waa in marka waxa weeye masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka liita aynu u naxariisannaa u samafallaa wanaagyada u samaynaa ciddii markaa ixsaanka samaysa ilaahay waxa weye iyagana waa ixsaan buu u sameeyaa yacni waxaa ka mida muslimiinta in loo duceeyo oo qofku naftiisa ducaysto waalidadii u duceeyo yacni muslimiinta kalena u duceeyo muslimiinta kalena uu duceeyo waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka ahi hadduu walaalkiisa ka maqan u duceeyo malak baa wuxuu yidhaahdaa aamiin ilaahay oo ducada ajiib oo aqbal ayuu yidhaahdaa malagii baa isaguna ku ducaynaya walaka bimislin adiguna intaa in la eg baad leedahay adiguna intaa in la eg ayaad leedahay saas aawadee waxaa la soo wariyaa salafkii dadkii wanaagsanaaye hore qaarkood waxa wanaagsanay doonayaan walaalahooda mu'miniintae ka maqan bay ugu ducayn jireen si ay uga helaan laba faa'iido labadaa faa'iido waa maxay waa mide ciddaa uu ducaynaayo ixsaan iyo samafal buu u samaynayaa oo waa laga ajar siinayaa isagiina waa anfacayaa man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal ku kastoo idinka mida oo kari karaya walaalkii inuu anfaco ha anfaco munaasabo kaluu ku soo arooray muslim baa saxiixa ku soo wariyey laakiin cumuumka lafdigiisa la qaadanaya walaalkiisi muslimkaabuu anfacaya marka la yidhi aamiin malaguu yidhi markaysaa ilaahay ducadan ajiib oo aqbal waxay u badantahay ducada in la ajiibayo walaka bimislin adiguna intaa in la eg baad leedahay waxaa kaloo ku sugantaa intaanan dhaafin ajar in laga siiyo oo nabigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ishfacuu tu'jaruu walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa axab shafeeco qaado ergeeya waa laydinka ajar siinaya oo nabigu wuxuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka cidi wax weydiisato in la yidhahdo yaa rasuula allahi sii rasuulka ilaahay oo sii ajar baa ka helaysaan buuri waa laydinka ajar siinaya walyaqdi illaahu calaa lisaani nabiyihi maa axab ilaahayna ha ku xukumo wayaqdi iyo walyaqdi labadaba waa loo soo naqliyey ilaahay waa ku xukumaya ama ilaahay ha ku xukumo carabka nebigiisa wuxuu doona inuu ku xukumo marka in ajar laga helayo shafaacadii waa laga qaadanaya man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha qur'aanka waata ilaahay inoogu sheegay shafaacada wanaagsan qofka in laga ajar siinaayo oo wanaag ka helaayo faa'iidada labaad ee uu ka helayaa waxay tahay walaka bimislin wixii baa u sugnaanayo wanaagsanaa ee walaalihiisa muslimiinta ugu ducaynaayo hadduu yidhahdo ilaahayow khaatimo wanaagsan ugu khatim ilaahay oo dembigiisa dhaaf ilaahay oo janno geli xisaab iyo cadaab la'aan ya walaka bimislin ila nabiga inoo sheegay malabku inuu saa ku odhanaye inay u sugnaanaysaa laga qaadanayo marka wuxuu noqonayaa in waxa weeye faa'iidadii oo laba jibaaran inuu sidaa ku helaayo ayay noqonaysa marka ducada in la badiyo oo qofku naftiisa iyo waalidadii iyo muslimiinta kaleba uu duceeyo aad iyo aad bay markaysaa muhim u tahay fursaddana laga faa'iidaysto dee ramadaan la gaadho ma ogin ramadaanno dambe inaynu gaari doonno kama warqabno
marka waxa waqtiga la joogo marka waa in laga faa'iideystaa waa in marka waxa weeye aan marka macaasidii iyo xumaantii iyo fisqigii yani marka waxa weeye aan marka la sii wadin oo aan lagu mashquulin ee laga toobad keena wixii hore yani marka ilaahayna laga dambi dhaaf weydiistaa ya dha alladhi ma kafaahu dhanbu fi rajabin حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر تصبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاص من الدان وحلكاغا dembigii uu ku fillaan waayey rajab gudaheedii inuu kula yimaado ilaa uu rabbi markaa caasiyey bishii shacbaan gudaheedana ilaahay ku caasiyeyo waxaa ku soo hadheeyey bishii soomka ayaa labadaa bilood ee rajab iyo shacbaan dabadeed ku soo hadheeyey falaa tusayirhu aydan shahra cisyaani ha ka yeelin bisha ramadaanna bilcisyaan ha ka yeelin watlul qur'aana nadmigaa sidan ku waafaqaya oo marka hore alqur'aan iyo alqur'aan labadaba waa la yidhahdaa qiraa'adka sabcigaana labadaba waa la akhriyey laakiin nadmigaa jabaya haddii marka halkan alqur'aan la yidhaahdo watlul qur'aana warattil fiihi mujtahidan qur'aanka akhri yacni tartiili xaalaad ku dadaalayso fa innahu shahru tasbiixin wa qur'aani waa bil tasbiixeed waa bil dikri iyo tasbiix iyo qur'aan weeyi kam kunta tacrifu miman saama min salafin min bayni ahlin wa jiiraanin wa ikhwaani imisaad garanaysaa dad soomay oo markaa horreeyey oo qaar ehel ay ahaayeen iyo qaraabo qaar jiiraan iyo deris ay ahaayeen qaar walaala ay ahaayeen afnaahum almowtu wastabqaaka bacdahum xayan fama aqraba alqaasi min addaani geeri baa dhammaysay dadkaas hore kuula soomay oo qaar ay jiiraan iyo derisye ahaayeen qaar qaraabooyin ay ahaayeen qaar walaala ay ahaayeen adiga ayuu ku baaqi yeelay yacni iyaga dabadood xaalaad nooshahay fama aqraba alqaasi min addaani alla ka fog maxaa uga dhowaansho badan kan markaa waxa weeye dhow bimacnaa wuxuu ka tilmaamayaa yacni innaguna waa ku daba jirnaayo markaa siday kuwaasiba u geeriyoodeen baynu u geeriyoonaynaaye fursadda ka faa'iidaysta oo markaa fursadda ha dayicina fursadda yacni markaa ha dayicina culammadii hore aad iyo aad bay uga faa'iidaysan jireen akhbaaro badan baana laga soo naqliyey mawduucaas oo kollay markaa ku saabsan markaa siday uga faa'iidaysan jireen yacni markaa bishani waa bishii markaa dembi dhaafka xadiiska soo arooroo sheegaya yacni tobanka u qaybinaya oo tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe mid markaa inuu toban ay tahay dembi dhaaf tobanna raxmad tahay tobanna markaa naar ka xorayn tahay xadiiskaasi waa daciifun jiddan ee bisha dhammaanteed waxa weeye waa dembi dhaaf iyo naxariis iyo markaa waxa weeye naar ka xorayn weeye waa inagii soo maray wadalika kula layla walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kula layla xagga dembi dhaafka axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortoo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbih ku kastoo ramadaan sooma xaaluu rumaynaayo iimaan daraaddeed u sooma ama xaaluu rumaynaayo ilaahay rumaynaayo ama iimaanan waxtisaaban iimaan iyo ajarniyaysa daraaddeed iyo ikhlaas daraaddeed iyo ajardoon daraaddeed u sooma gufira lahu maa taqadama min danbih waxaa loo dhaafaa wixii dembigiisii hormaray ayaa loo dhaafaa ya xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyeen xadiiska kale saxiixu wuxuu tilmaamayaa man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih ku kastoo ramadaan kaca oo qiyaamu leyl la yimaada rumaynuu ilaahay rumaynayo daraaddeed iyo ajar markaa uu doonaayo daraaddeed markaa u kaco qiyaamuleylka ula yimaada gufira lahu maa taqadama min danbih marka habeenadii ramadaan oo dhan qiyaamkii lala yimi uu ku saabsan yahay dembi dhaafkaasna mid saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay habeenka laylatulqadriga khusuuskiisa man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih waxaa loo dhaafaa wixii dembigiisa hormaray ka habeenka markaa waxa laylatulqadriga kaca yacni rumaynu ilaahay rumaynayo daraaddeed iyo ajaru niyaysanayo daraaddeed bisha ramadaan soonkeedu wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee shanta buu ka mid yahay sida xadiiskii saxiixayn kuba sheegaya bunaya alislaamu calaa khamsin islaamnimada 5 baa lagu dhisay
shantaa tiirna waxaa ka mid ah soonka ramadaan la soomayaa ka mid a afuraadda ramadaan la afuro oo cudurdaar la'aan loo afuro waciid daran baa ku soo arooray bal waxaa soo aroortay qofka aan markaa maalinta ramadaan soonkeeda dhammaystirin oo qadar yar oo ka mida ka taga ogaan uga taga ayaa waciid darani soo arooray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen baa markaa la kaxeeyey yacni waa riyaa lagu tusay dabeedna markaa waxa meel baa la korsiiyey waxaa la yidhi buurtan kor wuxuu yidhi ma kori karo waxaa lagu yidhi waa kugu caawinaynaayo kor annaga ku sahlayne buurta marka korkeedii koray ayuu codad markaa aad iyo aad qaylo daran ayuu markaa maqlay wuxuu yidhi ma haadihi alaswaat codadkani maxay yihiin haada cuwaa'u ahli nnaar yaa waa cabaadkii ahlu naarkaa la yidhi ahlu naarka cabaadkoodii iyo qayladoodii weeyi dabeedna waa la kaxeeyey waxaa loo geeyey niman soo laalaada oo inta marka halkaa yacni seedaha markaa dambe ee markaa canqowga ka dambaysa inta markaa wax laga suday ayaa markaa meel sare la soo suday saasaa loo soo foorariyey sida neefka marka haragga laga bixinayo soo meel lama soo sudo saasoo kaley meel soo sudan yihiin iyagoo nool ayay meel soo sudan yihiin markaasaa qowlaladoodana la dillaaciyey yaa labada qowlalna waa la dillaaciyoo dhiig baa ka da'aya markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man haaulaa kuwani maxay ahaayeen qaala aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwa afuraaya intaan soonkoodu dhammaanin oo aanu markaa soonkii aynay ka xalaaloobin bimacnaa wakhtigay xalaasha ahayd in wax la cuno wax la cabbo iyadaan la gaadhin oo qorraxdii aynay saani u dhicin kuwa iska afurayay kuwaa weeye ya xadiiskaa waxaa soo wariyey nasaa'i baa ku soo wariyey sunan kubraa ibnu xibbaan iyo xaakimna waa soo wariyeen waana saxiix ibnu xibbaanna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixinaya marka xadiis saxiixa weeye waciid daran baa ku sugan markaa soonka ramadaan rukni arkaantii islaamka ka mida weeye saas aawadee waa in aad iyo aad loogu dadaalaa aad iyo aad loola yimaada yaa baaqiya alkhayri aqbil ka khayrka doonayow soo qaabil ammintii khayrka aad samayn lahayd goortii aad khayrka samayn lahayd baad joogta fursaddii laga faa'iidaysan lahaa baad joogta waxaynu garanayaa dadka baayac mushtarka ah mawaasimta marka laysu yimaado meelaha markaa aadka u camiran ee la yidhahdo bandhig baa ka jira nin waliba badeecaddiisuu keenaa muxuu doonayaa fursadda inuu ka faa'iidaystuu doonayaa waa fursad qaali ah waxaas oo khalqi ah oo isu yimi inaannu isla helin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa si wax fara badan looga iibsado xataa qiimaha inuu wax ka yaro dhimo laakiin muxuu doonayaa faa'iidadaa yar way biiraysaa haddii kamiyada laga iibsanaya aad iyo aad u badato muxuu sidaa u yeelayaa inuu fursaddan ka faa'iidaysto fursadda ramadaantu haddaba wax walba waa ka qaalisan tahay ya 11 bilood ee kale lama mid aha waa ka duwan tahay waa shahra asabri waa shahra alqur'aan waa shahra alsawm waa shahra alsadaqa waa shahra alqiyaam ya waa shahra alcidqi min annaar waa shahra almaghfira waa shahra alraxma waa bil aad iyo aad u fadli badan waa fursa qaaliya sida fursaddaasoo kale loo helaa dee ma garan karno inayna soo mari doonto mar dambe waxaynala gudboon in guntiga dhiisha la yskaga dhigo fursaddan laga faa'iidaysto yacni lagu dadaalo towbadkeenkiiyo istikfaarkuna waa waxa ugu horreeya intaa dabadeed soonka ramadaan laftiisa waa in loo aqoon yeeshaa si soon saxiixa loo soomo masaa'isha ishkaalka ka gala qofka waa inuu markaa cidda cilmiga ule weydiiyaa waa inuu markaa cilmigeeda doonaa waxaa dhici karta ruuxu inuu soomo ou salaado oo salaaddiiyo soonku siday uga asaxaysay aanu iska hubsan oo aanu markaa waxa baran ya waad daalaysaa waad camal falaysaa shaqadii baad qabanaysaa waad ku dadaalaysaa siday wax kaaga asaxayaan ee soon wanaagsan iyo salaad wanaagsan aad ula iman lahayd waa inaad ku dadaashaa intaa horteedna waa in la wanaajiyaa tawxiidkii la hagaajiyaa oo qofkii iimaankii asaaskii wax ku binaysnaayeen u saxnaadaa ya haddii gurigu seeska ka khariban yahay dhismaha lagu dul binaynayaa waxba tari maayo waa dildilaacaya waa burburaya waa dumaya waxaa loo baahan yahay seeskii asaaska in la hagaajiyo asaasku waa tawxiidkii weeye iyo iimaankii bacda daalik camalkii arkaanta waa in lagu dadaalaa inuu hagaagsanaado
ow saxnaado nin saxaabiya oo saxaabadii nebiga ka mida calayhi salaatu wasalaam ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisu ku tukaday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda waa saxaabi irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani ka sidaa lagu leeyahy waa saxaabii nebiga la kulmay oo rumeeyey waa saxaabtii nebiga ka mida ayuu nebigu ku yidhi waxaad tukatay salaad ma aha waa salaad la'aan ku noqo ya marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye salaaddii iyo soonkiiba la saxdo in loo aqoon yeesho in soon saxan iyo salaad saxan lala yimaado aad iyo aad bay muhiim u tahay soonka haddaynu yaro dul marno ugu horrayn soonka marka la soomaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatih wa aftiruu liru'yatih araggiisa ku sooma araggiisana ku afura bisha ayna aragtaan ku sooma ina aragtaanna ku afura bishu waxay ku sugnaataa laba shay waxay ku sugnaataa in la arko bishii ramadaan oo cid uga qaateeni ay bishii aragto sharti ma aha dadkoo dhammi inay wada arkaan biijmaaci almuslimiin muslimiintu waa isku waafaqsan yihiin qof waliba inuu arkaa inay sharti ahayn shartina ma aha jamaahiirtiiyo badanku inay arkaanna sharti maaha cid ka mida muslimiintu inay arkaan baa ku filan waxay isku hayaan fuqahadu ma labaa la shardinayaa mise mid baa ku filan aragga axaadiista qaarba mid bay tilmaamaysa xadiiskii ibnu cumar wuxuu sheegayaa taraa annaasu alhilaal fa akhbartu rasuula llahi sala allahu alayh wasalam annii ra'aytu yacni dadkiibaa bishii markaa doonay inay arkaan markaasaa rasuulka waxaan u sheegay buuhi inaan bishii arkay fa saama wa amara annaasa bisiyaamih markaasaa nebigu soomay waxaanu amray dadkiina inay soomaan buu amray xadiiskaasi waa xadiis qawiya abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey waana markaa saxiix ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiye marka hal qof inuu arko inay ku filan tahay baa laga qaataa xadiis kaloo laba sheegayaana waa jiraa fain qumma calaykum faakmiluu alaaiina fain shahida shaahidaani fasuumuu wa afdiruu haddii bisha laydinka qariyo arki waydaan soddonka dhammaystira hadday laba markhaati ka markhaati kacaan fain shahida shaahidaan riwaayaadka qaar waxay ku darayaan muslimaani laba shaahid oo muslima dawaa cadlin cadaaladu saaxiiba fasuumuu wa aftiruu sooma oo afura marka laba hadday arkaan in la soomaayo waa la isla ogolyihi culamada qaar waxay kala farqiyaan bisha biladkeeda iyo dhammaadkeeda oo bilashada hore waxay yidhahdeen hal baa ku filan dhammaadka bishu ay baxaysoo dhammaanaysana laba markhaataa loo baahan yahay bay fuqahada qaarkood yidhaahdaan iyagoo xadiiskan daliishanaya waayahay bisha sugnaanshaheedu wuxuu ku sugnaadaa ama aragti uga qaateen ah ama wuxuu ku sugnaadaa soddonkii shacbaan oo dhammaaday haddii soddonka shacbaan dhammaado ziyaado kale laguma dari karo waayo bisha qamarigee dayax laga tiriyaa laba midunbay noqotaa ama 29 bay ku dhammaataa ama 30 bay ku dhammaataa 29 wax ka yar ma noqon karto 30 wax ka badanna ma noqon karto marka labada mid ahaan bay ku sugnaataa maalinta shakiga in la soomaa ma bannaana oo ixtiyaad marka waxa weeye ramadaan loo ixtiyaadayo loo soomaa sida marka waxa weeye xadiiskii Cammaarba uu sheegayo man saama yawma shaki faqad asa aba alqaasim lafdi kale uu sheegayo man saama alyawma alladhi yushakku fiihi faqad asa aba alqaasim ku kastoo sooma maalinta la shakinayo ee aan markaa ramadaan inay tahay lagu hubsanin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa caasiyey bukhaari baa soo wariyey isagoo mucallaqa laakiin waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan baa isagoo mawsuula soo wariyey waana saxiix yacni culamo badanna waa saxiixiyeen imaamu tirmidina waa saxiixinaya xasanun saxiix buu odhanaya waxaanu tilmaamayaa jamaahiiru ahlicilmi hadday saxaabadii nebiga tahay iyo haddii ciddii ka dambaysay tahay bayna xadiiskaa qaateen oo ay ku camal faleen jamaacad badan culamada ka midina waa saxiixiyeen waayahay soonka haddaba la soomaayo soonku wuxuu leeyahay laba rukni waa niyada soonka la niyeynayo rukniga labaadna waxa weeye waa alimsaaku can almufatiraati min alfajri asaadiqi ilaa ghuruubi ashams waxyaalaha soonka jamiya wax afuriya in laga afhaysto la yska daayiyo laga soo bilaabo waaga dhabta adilaaciis laga gaadho dhicitaanka qorraxdu dhacayso
inta ka dhexleh in wax alla wixii mufatiraada la iska daayo oo aan ogaan loola iman illa shay wixii u dhaca halkeedii soonka faralka marka la niyeynayana waa in habeenkoo isku jiro wali waagu aanu dilaacin waa in la niyeeyaa niyadaasi waa in noqoto niyo casmi oo la go'aansaday waa in soo noqoto intaan waagu dilaacinna niyadaasi waa inay dhacdaa fiidkii waa la niyeyn karaa saqda dhexe waa la niyeyn karaa soo dhowaadkana waa la niyeyn karaa waa inay kaa go'an tahay habeen kastaba inaad berri sooman tahay ama suxuur u kac ama ha u kicin dad waaweyn baa waxa dhacdaa inay maalin ramadaan iska cunaan war maxaa kugu dhacay xalay baan suxuurtii ka seexday haddaad suxuurtii ka seexatay miyaad dhimanaysaa haddaad markaa waxba soonto ma cudurdaar bay kuu noqonaysaa shardi miyay u tahay soonka in la suxuurtaa shardi maaha waxay culammadu sheegeen jamaahiiru ahlicilmi bal ijmaac qaarkood ku soo naqliyeen suxuurashadu inay sunno tahay sunna mu'akkada ijmaac baaba bacdu ahlicilmi ku soo naqliyeen calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi saasay qabaan laakiin wax shardi ka qabaa culammada ma jiro in suxuurtu shardi u tahay soonka wax qabaa ma jiro ruuxu isagoo suxuurtaya isagaa suxuura mid walba waa soomi karaa laakiin sunnada waxay tahay inuu suxuurto marka ama suxuur ha u kaco ama yaanu u kicina niyo go'aana waa inuu ku seexdaa inuu berri sooman yahay niyadaa fiidkii uu sii niyeeyey u diidi mayso inta habeenku isku jiro inuu wax cuno oo isagoo bacdalmaqribkii niyeeyey ayuu haddana dee ila wakhtigii soonku bilaabmayey lama gaadhini inta habeenku isku jiro waxbuu cuni karaa waxbuu cabbi karaa galmuu la iman karaa uu haweenaydiisa u galmoodo kullu daalika waa samayn karaa niyadaasina diidi mayso inta habeenku isku jiro inuu la yimaado waxyaalihii soonka jabin lahaa hadduu maalintii la yimaado wixii soonka ka jabin lahaa maalinnimadii hadduu habeenka gudihiisa sameeyo niyada uu fiidkii niyeeyey uma diidayso marka niyada go'aanka waa in lala yimaadaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen habeenka ramadaan ugu horreeya markuu soo galo waa inuu niyoodaa 30 ramadaan inuu soomaayo waa inuu casmigaa la yimaadaa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin maalin walba habeenkeeda waa in la niyeeyaa laakiin madhabu maalikin waxay leeyihiin soonka ramadaan waa cibaada waaxida saas aawadee habeenka ugu horreeyaa la wada niyeyn karaa saxiixu waxay tahay sida jumhuurka oo madaahibta kale ay ku tageen baa saxiixu yahay man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qabla alfajri baa la yidhi waana qabla fajri liyowmihi baa laga tilmaamaya man lam yubayit asiyaama fi leyli falaa siyaama lah ha yeeshee haddana fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen oo shaaficiyada qaar ka mid yihiin ixtiyaatan waa inuu habeenka hore iska wada niyoodaa si haddii wax ku soo dariyaan taqliidka maalik uu ugu baxsado ruux bacdu shaaficiya ayaa saa yidhi calaa kulli xaal sida qawiga ahi waa sida kolley jumhuurka in habeen walba gaarkeeda loo niyeynaayo ee tan kale waxa weeye si markaa habeen hadduu ruuxu ilaawo niyadii ama markaa waxa weeye cillad markaa ay ku dhacdo markaa aanu habeenkaa u niyeyn si uu markaa waxa weeye waciidkii darnaa uga baxsado ayaa laga tilmaamaya xadiiska markaa sheegaya ruuxan markaa soonka habeenkoo isku jira aan niyeyn soon ma leh waxaa soo wariyey abu daawuud iyo markaa tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu khusayme iyo ayaa soo wariyey waana saxiix culamo badanna waa saxiixiyeen xadiis haabita weeye cunitaankiiyo cabbitaanka waaga dilaaciisa fajru saadiqa ilaa ghuruubi shamsi wax alla wixii soonka jabiye waa inuu ruuxu iska ilaaliyo waaga hore wax waa iska cuni karaa laa yamnacannakum adaanu bilaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaanu idiin diidin cuntadii cabbitaanka addimaadda markaa bilaal uu addimaayo fa innahu yu'addinu bileyl waayo habeenka gudihiisuu addimaa waa waaga hore fajrulkaadibka la yidhaahdo waa ka la yidhahdo markuu ooggu istaagay yaa habeenkii weli waa joogaa aayadduna waa ku tusinaysa wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr marka ilaa waagu ka dilaacayo cunistiiyo cabbista waa la wadayaa weliba marka waxa weeye shakigu waxba baajin maayo
hadduu qofku ka shakiyo talo waagii ma dilaacay mise ma dilaacin uuna waagii arkaayo qariino iyo daliil u caddaynaysaana aynay jirin dad siqaadoo u sheegay aynay jirin addimaad ma maqal yacni markaa waxa weeye uu ogaaday adaankii dambe inuu yahay iyo wax la mida cid yacni siqaadii uma sheegin waa ka shakiyey waagii ma dilaacay mise ma dilaacay alaslu baqaa'u lleyl asalku waa habeenkii inuu baaqi yahay waatuu cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi kul maa shakakta xataa laa tashukka intaad shakinayso cun ilaa shakii weydo aad yaqiinsato waayo allah wuxuu yidhi xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr hadduu shakiyana waxa uma caddaan yatabayana ayaana allah yidhi marka cunitaanka iyo cabbitaanka iyo galmada iyo waxyaalaha kale soonka jabiya hadday tahay iska matajinta iyo ashyaadaas kullu dalika waa in la iska ilaaliyo soonka waxyaalo manciyaa jira oo maanica oo labada dhiigga dhalmada iyo dhiigga caadada qofka dumari hadday mid ahaan leedahay soon iyo salaad toonna lama iman karto waa maanic soonkii u diiday intay dhiiggaa leedahay ma soomi karto laakiin soonkaa inay qallaysaa saaran oo dib ka qallayso markii caaisha la weydiiyey xadiiska saxiixa ee muslim saxiixa ku soo wariyey maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa qaala kaana yusiibuna dalika fii cahdi rasuli illahi sala allahu alayh wasalam fakunna nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waxay tihi dhiigga caadadu wuxuu nagu iman jiro o na haleeli jiray wakhtigii rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa nala amri jiro o nala fari jiray inaan soonka qallayno inaan salaada qallaynana nalama farin marka labadaa dhiig soonkii waa mancinayaan waa maanic lilibtidaa'i waaddawaami macan waxay mancinayaan soon in la bilaabo iyadoo qofka dumarii dhiiggaa leedahay labadaa dhiig mid ahaan dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada ma soomi karto soom ma bilaabi karto waa maanic liddawaam soonku inuu sii daa'imana waa diidaysaa oo hadday maantao dhan soomanayd oo qorraxdu intaynay saani u wada dhicin oo liiqa ay la soo jeedo dacalka ama daqaa'iq yari ka hadhsan yihiin dhiiggaasi uu yimaado maalintaas soonkeedu uma jiro wuu buray soonkii waa jabay qallana waa ka saaran yihi inay qallaysaana waa saaran yihi dhiigga dhabar furanku diidi maayo soonka maanic ma aha waayo gabadhu dhiigga dhabar furanka hadday leedahay laakiin markaa labada dhiigee kale aynay lahayn ee dhiig dhabar furanun uu yahay xaaladda caynkaasa waa soomaysaa soonkii kama mancinayo uma diidaayo waayo waa fii xukmi daahiraat inay daahir tahay baa xukunkeedu yahay taana waa saas weyi waxay noqonaysaa un markaa inay dee waxa weeye dhiigga iska maydhayso dhiigga dhabar furanka dabeedna ay weysaysanayso tukanayso markaa dhiigga dhabar furanku soonka iyo salaadda toonna diidi maayo labada midna kama mancinaayo waa yahay waxyaalaha soonka buriya waxaa ka mida cunitaanka ogaan wax loo cuno maalintii ramadaan waxaa ka mida cabbitaanka ogaan wax loo cabbo waxaa ka mida galmada ogaan loola yimaado ashyaadaasi hadday ilowshiye ku dhacdo oo ruuxu isagoo ilowsan soonkiisii ashyaadaasi ka dhacdo waxba kama saaro soonna kama burin laakiin markuu ogaado waa inuu joojiyaa degdeg uga baxaa waxa uu afka ku haya tufaa aanu liqin laakiin markuu is ogaado hadduu iska liqo uu yidhaahdo marka waxa weeye dee hadda in ka mida uu iska sii liqo waxay noqonaysaa soonkaasi waa ka buray waa ka jabay saasay noqonaysaa waxyaalaha soonka burinaaya waxaa ka mida iska matajinta qofku iska matajiyo ayaa ka mid a man daracahu alqay'u falaa qadaa'a calayhi waman istaqa'a falyaqdi kii markaa mata ka qaalib noqdo qalle ma saara kii laakiin iska matajiyaa ha qalleeyo xadiis baa lagu soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweeyeen markaa soonkii iska matajinta la iska matajiyaa waa burinaya oo soonka waa ku jabaya waxyaalaha soonka jabinaya waxaa ka mid a riddada ruuxu gaaloobo sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan hadduu markaa riddo ama gaalnimo ku dhaco soonkii waa ka buraya soonkii waa ka jabaya waxyaalaha soonka ka burinaya waxaa ka mid a waalida hadduu ruuxu waasho soonkiisu waa jabaya suuxitaanka ruuxu suuxo
ahlucilmigu waxay yidhahdaan jamaahiirta culammadu haddii aanu markaa maalintoo dhan aanu suuxsanaan ee ay noqoto markaa in yaroo ka mida inuu suuxay soonkii markaa intaa kuma jabay laakiin waalida yacni markaa yar ee ku soo darridaa walow wakhti koobanba ha noqotee soonkii waa burinaysa hurdadu iyadu burin mayso walow hadday markaa waxa weeye ruuxii kaba qaalib noqoto oo dee istiqraaqdo wakhtigoo dhan kama jabayo markaa waxa soonkii waxaa ka mid a waxyaalaha soonka ka jabinaya manida inuu iska soo saaro biyaha shahwada inuu iska soo saaro ogaan isaga soo saaraa ama asbaabay ku imanayso oo isagu markaa la imanayo sida markaa ama ciyaar iyo wax la mida ama aragga markaa uu cid ku celcelinayo oo markaa waxa weeye markaa uu ku keeno ama farsamo kale uu ku soo saarayo soonkii waxa weye waa jebinaysaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen oo afarta madhaboodna ay ka mid yihiin bal culamada qaarkood ay yidhahaan khilaafba ma leh ay saas yadaa yidhaahdeen waxaa ka mid a marka waxyaalaha soonku ku jabayo waxyaalaha sanka haddii wax laga qaato joofka tagto wixii u dhaadhacaan iyaguna soonkii waa ku jabaya wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima waa kii xadiiskii sheegaya laqiid ibnu sabira waa kii tilmaamaya xadiiskana culamada qaarkood baa quwaysay waxaanu ka mid yahay sanku waxyaalaha u daloola jawfka ama caloosha sidaas aawadeed qofku markuu wax qaadan kari waayo waxaa la sameeyaa tuun baa laga geliyaa sanka laga geliyaa waxyaalaha dareeraha loo raaciyaa dabeedna markaa calooshiisa saasay ku tagaan sidaas ayay ku tagaan marka as-sacuud wuxuu ka mid yahay waxyaalaha soonka jabinaya ayuu markaa ka mid yahay waxaa ka mid a alibar almuqadiya waxyaalaha la yidhaahdo ama sayloonnada la ysku xidha iyo ashyaada noocaasa waxa weeye markaa qofkii markaa isu taagaya meeshii cuntada iyo cabbitaanka oo kale ee uu wadda ka helayo gulukoostaa lagu xidhayo ama sayloonka iyo ashyaadaas waxa weeye soonkii waa ka jebinaysa irbadaha qofka lagu mudayo ee daaweynta looga jeedo ee muruqyada iyo laga siinayo iyadu markaa soonkii kama jabayso wakada hadday daaweynun tahay culamada qaar waxay haleeshiyeen xididkaba ha laga siiye soonka ku jabi maayo laakiin kuwa marka waxa weeye taqwiyada iyo xoojinta looga jeedo ee meesha cuntada iyo cabbitaanka u gelaya kuwaas iyagu soonkii waa burinayaan oo soonkii waa ku jabaya waxaa ka mid a soonkii waxyaalaha uu ku jabayo yacni waa inaanu guntamin bay noqonaysaaye hadduu habeenkii aanu niyeyn ee waagu markuu dilaacay dabadeed uu niyeeyo waxay noqonaysaa soonka faralka ahi uma jiro yacni soonkii waa ka jabay oo marka waxa weeye waxay noqonaysaa waagii hadduu ka dilaacay isagaa niyeyn maalintaa waxba soon uma jiro laakiin mar haddaanu cudurdaaru ku afuro haysanin waxaa ku waajiba inuu afhaystaa ku waajiba oo aanu waxna cunin waxna cabbin wax soon buriyana aanu la imanin maalintaana inuu haddana qalleeyaa saaran waxaa kala duwan qofka aan soonku u guntanayn ma cudurdaaru ku afuro lahaa mise wax cudurdaaru ku afuro midaan lahayn noqoy hadduu cudurdaaru ku afuro leeyahay afuraaddiisii wuu iska sii wadan karaa oo dee waa u bannaanay hadduu cudurdaaru ku afuro aanu lahayn inuu dee afuraa uma bannaanaa hadduu yidhahdo soomkii ma niyeyn inuu afhaystaa waajib ku ah waayo cudri ay ugu bannaanaado cunitaankan iyo cabbitaankani ma yaallo imsaak baa ku waajiba waa imsaak waajiba weeye mustaxab maaha haddana maca daalik qallaa saaran imsaakgaa haddaanu la iman waa dembaabayaa dembi kalaa sii fuulaya laakiin imsaakgaa hadduu amarka qaato ajar buu ka helayaa ha yeeshee soonkii kama deeqayo qallihii waa saaran yahay marka cudurdaaru ku afuro mar haddaanu haysanin imsaak baa ku waajibaya uu markaa wax allo wixii mufatiraada uu iska daayo baa waajib ku noqonaysa haddana maca daalik maalintiina waa qallaynaya waxaa la mid a hadduu ka shakiyo soonkii ma niyeysay talow qabla alfajri mise bacdahu baa niyadu aad u dhacday goortaad niyeysay waagu miyuu dilaacay mise ma dilaacin hadduu isku qabto alaslu fiihi alcadam asalku wuxuu ahaa inaanu niyeyn habeenkii ilaa uu hubsado inuu habeennimo niyadiisu dhacday marka shakiga uu ka shakiyo niyadiisu ma habeennimay dhacday mise habeennimadii ma dhicine waagu markuu dilaacay dabadeed bay dhacday
waxay noqonaysaa xukunkeedu inaanay sugnayn habeennimadii inuu niyeeyey waayo asalku cadam buu ahaa ilaa uu taxaquqaayo oo yaqiinsanayo ama hubsanayo goortuu niyeeyey inay habeen ahayd waayo alaslu fiiha alcadam ya shayga xaadidkee soo darriyeyna waxaa loo tiiriyaa ilaa aqrabi zaman wakhtiga ugu dhow baa loo tiiriyaa wakhtiga ugu dhowna wuxuu ahaa waa berigii taana saas yadaa bay noqonaysaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood oo soonku ka dhacayaa jira dadka soonku ka dhacaya waxay noqonayaan dadka garashadoodu ay tagtay dadkii waalan waa la garanayaa inaan soon saarayn ubadkii yaraa inaan soon ku waajib ahayn waa la garanayaa iyadoo tarbiya ahaan iyo tababar ahaan in la soomiya ay fiican tahay hadday awoodi karaan dadka asaasaqe aan waxba kala garanayn wax sooni ma saara haddii qofkaasi garashadiisu tagto aan waxba kala garanayn oo caqligiisa aanu joogin soon laguma leh laa fidyaan laga bixinayn oo soonkii beddelka ah oo masaakiin in la quudiyo ah maalin walba iyo inuu soomatoonna ma saara hadduu asaasaqo sakaatulfitriguunbaa laga bixin doonaa hadduu gaadho laakiin soon saaran oo ku waajibi ma jiro ruux hadduu asaasaqo waxaa jira dadka qaarkood oo gaboobay oo garashadoodii ay marna tegayso marna soo noqonayso dadka noocaasee xaaladdaa ku sugan mid weliba xukunkeeday leedahay marka garashadiisu joogto wax kala garanaayo ee uu caadiga noqdo xaaladda caynkaasa soon iyo salaadba waa laga rabaa marka garashadiisu tagtana midna ma saara waa ka dhacayaan way dhacda dadka qaarkood in xaaladda maskaxdiisu ay suustiwalaynayso oo ay markaa waxay marba si noqonayso marka mid waliba xukunkeeda yeelanaysaa haddaanu waxba kala garanayn waxba ma saara hadduu wakhtina wax kala garanayo wakhtina aanu wax kala garanayn wakhtiga aanu waxba kala garanayn asaasiqaa daraaddii wax u kala garan waayey waxba ma saara laakiin markay noqoto inay gorashadiisu soo noqoto wax kala garto way saaran tahay marka taasna sidaas yadaa weeye dadka markaa gaboobay ee da'da ah ee aan soomi karaynin amaba xanuunnada joogtada ah leh xanuunkaana aanu ka soomi karayn laakiin caqligiisii iyo garashadiisii ay joogto xanuun la filayo inuu ka bogsanayo ma aha sida maluhu u badan yahay waa inaan xanuunkaa laga ladnaan waa xanuun joogto ah amraad musmina la yidhahdaa kamana soomi karo laakiin garashadiisii waa joogtaa wax waa kala garanayaa masaakiin buu quudinayaa maalin kastaba beddelkeeda soonkii miskiin buu quudinayaa 30 ramadaan ama 29 maalmood ee ramadaan mid walba miskiin buu ka quudinaya 29 miskiin hadday 29 ku dhammaato ama 30 miskiin hadday 30 ku dhammaato quudinta uu quudinayo aayadda laga qaadanayo وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين iyaga nisbadooda waxay u tahay muxkam odaygaa gaboobay islaantaa gabowday aan soomi karayn iyo dadka xanuunada joogtada ah leh ee aan ka soomi karayn xanuunkaasina xanuun joogta ay yahay waxay samaynayaan maalin walba miskiin inay quudiyaan qadarkay ku quudinayaan waa wax quudini ku rumoobayso afurin maaha dadka qaar waxay leeyihiin waa in qof aad afurisaa saaran markaasaa waxaa laga yaabaa xabado timira iyo xabad saambusa ama 2 xaboo saambusa iyo koob sharaaba dee inuu siiyo taasi kuma filla waxaa la doonayaa quud yacni markaa qofkii uu dee ku qadi karo sida la samaynayaana waxay noqonaysaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam qaarkood waxay sheegeen mud raashin mud ah mudku wuxuu noqonayaa nuskiile iyo in yar ayuu noqonayaa 600 garaam ama yacni haddii wax yar lagu darana waa suuroobi karta bacdi kaleoo saxaabada ka midna waxay nisfu saac waa 2 mud waa kiilo iyo 200 garaam yacni kiilo iyo rubuc wax ku dhow yacni rubuc kiilo wax ku dhow anas ibnu maalik saxaabiga la yidhaahdaana wuxuu sameeyey markii uu gaboobay oo soomi kari waayey sanad buu wuxuu sameeyey inuu casuumad markaa uu sameeyo 30 miskiin u yeedho calooshooda u dhergiyo khulaasadu waxay tahay طعام miskiin waa mutlaq
inta mid walbana waa ku rumoobaysaa marka insha Allah al-amru fi waasi' quudinta miskiinka la quudinayo oo qadarka ugu yari ku dhacaayo miskiila iyo in yar yani 600 gram meelahaas aw naxwa hada ba qadarka ugu yari afdalkuna waa nisfu saac afdalka miskiin lagu quudiyana waa kiilo iyo 200 gram xadiiskii bana laga qaadan karaa yani xajka ku saabsanaa aw at'im 6 masaakiin likulli miskiin nisfu saac xadiiskii saxiixa ee xajka ku saabsanaa yani 6 miskiin quudi munaasabo kale ku saabsanaa mid walba nisfu saac la siinaa kaasi waa afdalkii على كل حال خلاصة waxay tahay maalin walba miskiin waa in la quudiyaa haddii raashin bisil la siinayo calooshiisa waa in loo dhergiyaa haddii mid qeedhin la siinayana ugu yaraan 600 gram nus kiilo iyo in yar waa in la siiyaa raashin ah ugu yaraan inta labalaabkeed in laga dhigaana waa ka fadli badan tahay sida ugu fiican isaasiyada weeye marka caynkaas ayuu sameynaya dadka xanuunada qaba ama macaanka ha noqoto iyo waxyaalaha la midka qaarna waa ka soomi karaan qaarna kama soomi karaan qofkii ka soomi karaa waa inuu soomaa laakiin qaar baa heerkoodu wuxuu gaaray heer aan soomi karin oo aan cuntadii ka qadi karin waqtiga intaa leeg laga yaabo 4 saacadood kasta inuu wax cunaa in lagama maarmaan xaaladiisa u tahay haddii qofkii xaaladda gaaro xanuunkiina xanuun joogta ay yahay waa inuu raashinka bixiyaa maalin walba miskiin quudiyaa laakiin hadday noqoto inuu raashinkii ka qadi karo oo ka soomi karo waxay noqonaysaa waa soomayaa hadday waqtiyada qaarkood ciladu ku soo yara korodho maalintii ay ka fursawaa keesanto xanuunka daraadeed waa afuri karaa laakiin haddii aanay joogto u ahayn sidaasi waxay noqonaysaa inuu qalleeyo maalmaha kalena soomo yacni saasay markaa noqonaysaa taana saas yadaa weeye waxyaalaha ajarka soonka nuqsaaminayadu waa badan yihiin wixii macaasi iyo dembiye ahi ajarkii bay nuqsaaminayaan laakiin soonka burin maayaan man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi waaljahla falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah sida xadiiska ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska saxiixa ruuxaan ka tegin hadalka beenta ah iyo aqoon darrada yani marka tacaddiga iyo xadgudubka yani qofkan iska dayn ilaahay dan kama laha bimacnaa ma jeclo kama raalli ahaa fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah inuu iska daayo cuntadiisa iyo cabbitaankiisa ilaahay miduu ka raalli yahay oo jecel yahay ma aha marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal fadliga iyo ajarku inuu ku nuqsaamayo marka sidaas aawadeed laqwiga iyo dembiga iyo waxyaalaha noocaas oo kale waa in la iska ilaaliyaa haddii markaysa markaa cidi ay caydo waa inuu isagu aanu la caytamin waa inuu marka waxa yidhaahdaa innii saa'im waa inuu yidhaahdaa yacni fadli iyo ajar weyn baa ugu sugan sida xadiiskii markaysaga uu sheegayo marka sidaas aawadeed dulqaadka inuu ku dadaalo oo u sabro oo u dulqaato oo waxa weeye markaa ciddii ku xadgudubta laftooda uu yacni cafiyo si ilaahay isagana u cafiyo alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyaydaan jeclayn ilaahay inuu idiin dembi dhaafo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay ayaa abaalmarintuna noqonaysaa marka qiyaamka ramadaan iyo qur'aanka iyo dikriga iyo ducada yacni marka aad iyo aad ha looga faa'iidaysto khayraadka kale ha laga faa'iidaysto nebiguna calayhi salaatu wasalaam khayrka aad buu ugu dheerayn jiray bisha ramadaan markay ahaatana wuxuu ahaa markaa mid uga degdeg badan yacni markaa khayraadka dabaysha waa uga degdeg badnaa aad iyo aad buu ugu dadaali jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye mar walba khayrka waa uga degdeg badnaa dabaysha dheeraynaysa la soo diray waa uga degdeg badnaa wuxuuna ugu sii degdeg badnaayoo khayrka aad ugu sii dadaal badnaa sida axaadiista sixaaxii ku soo aroortay ramadaan markuu ku sugan yahay ayaa markaa waxaweyne aad iyo aad ugu sii dadaalkiisa ugu sii badnaa markuu jibriil la kulmo aad iyo aad ayuu ugu sii dadaali jiray marka fursad qaaliya weeye waa fursad aad u qiimo badan fursadda noocaasa aad iyo aad ha looga faa'iidaysto yacni waxa weeye bisha ramadaanna marka la soomaayo soon kaloo lala niyoon karaa ma jiro hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay toonna waayo wakhtiga ramadaan hadduu soo galo soonkii wuxuu noqonayaa waajib mudayaq waajib cidhiidhi ah wakhtigu wuxuu ku filan yahay keliya soonka ramadaan soon kaloo aan ramadaan ahayn yacni ma qaadayo boos ugama bannaana
saas aawadeed ramadaan iyo wax kalaan wada niyoonayaa meeshii iman mayso. ramadaan keliya la niyoonayaa. markaa niyada ha la wanaajiyo, khayrka ha lagu dadaalo, ilaahay ha la baryo, qabuulka camalka saalixana ilaahay ha laga baryo. yacni yaan la iscajabin haddii wanaag iyo wax badan oo wanaaga lala yimaado. iscajabinta la iska ilaaliyo. cujbigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha markaa waxaweye wax fasahaadiya ayuu ka mid yahay. aad iyo aad taana ha la isaga jiro. in sha allahu tacala waxaynu tukan doonnaa salaada cishe. marka haddii bacdu alas'ila oo ku saabsan mawduuca ay jiraanna bacda cisha aynu ka dhigan doonnaa in sha allahu tacala. halkaa inagu joogo wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaghfiruka waatuub ilayk.